Maraykanku waxa uu ku khasbanaaday inuu ergadiisa wada hadallada Iran u diro Pakistan iyadoo aysan jirin hubanti ah in Iran diyaar u tahay ka qaybgalka wajiga xige ee wada hadallada xalka loogu doonayo dagaalka ducahan. Maalmo ka hor wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance ayaa lagu warramay inay safarkooda Islaamabad daqiiqadihii ugu dambeeyay ka baaqsadeen kadib markii Iran si cad u diiday tagista Pakistan iyo inay si toos ah uga qayb gasho wareegga labaad ee wada xaajoodka. Isla maantadan waxaa mar kale la rajeynayaa inay caasimadda Pakistan tagaan wafdi ka kooban wakiilka aqalka cad Steve Witkoff iyo wiilka Trump xididka la ah ee Jared Kushner. Socdaalkaas oo ku beegmaya xilli uu Pakistan joogo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi oo docda Tehran laga xaqiijiyay inuusan halka u tagin wax la xiriira si aan baqaadida wada hadallada Maraykanka. Telefishinka CNN ayaa ku warramay inay jireen xiriiro aan toos ahayn oo dhex maray Tehran iyo Washington kuwa oo Iran ku soo bandhigtay inay sugayso qorshe wada hadallo cad ay ku hawlgeli karto oo hadafyadeeda u hiilinaya oo Maraykanku la gula yimaado. Haddii la waayana waxa Iiraaniyiintu xaqiijiyeen inaysan diyaar u ahayn tagista wada hadal dambe oo qadiyadan la xiriira. Socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee Islaamabad ayaa Iran ku sheegtay inuu bilow yahay safar uu wasiirku ku marayo dalal dhowr ah oo Cumaan ku jirto. Qorshaha safarkan qayb kama aha si wadida wada hadalladu ha ahaatee Maraykanka oo u muuqda markan inay taladu kaga ururtay xoog iyo xeelad ku doonka wada xaajoodka xiga ayaa ku xarbinaya inaan Islaamabad fasixin wafdiga Iran ilaa labada ducood mar kale la is horgeeyo. Warbaahinta dawladda Iran waxay safarka Araghchi ee Pakistan ku qeexday mid Iran dhexdhexaadiyeyaasha oo Pakistan ugu qeexayso mowqifka Tehran ee la xiriira inaysan diyaar u ahayn ka qaybgalka wada hadal dambe oo dhex mara iyaga iyo Maraykanka. Waxa ay tabiyeen inay Iran kaliya diiradda saarayso ku qancinta jaalkooda Pakistan inaysan diyaar u ahayn ka qaybgalka wada xaajood kale oo natiijadiisa la sii og yahay, taasoo ka dhigan in Tehran xeeladaha wada hadal ee Maraykanka u aragto kuwa aan maslaxadooda u hiilinayn. Inkastoo uu kordhayo cadaadiska Iran ka saaran docda xayiraadda Maraykanku saaray dekedaha dalkaas tiyo Washington ku dartay xanimaadda malaayiin dollar oo suuqa kiribtada ugu jiray Tehran, haddana Iran waxay u muuqataa inaysan weli u leexin cadaadisyadan aan tirada lahayn. In xanibaadda dekedaha Iran ay sidoo kale saamayso quwado kale oo waaweyn sida Shiinaha oo shidaalkiisa ugu badani ka dhoofo dekedaha Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa docda kale xaaladda ku sii adkaynaysa Washington, waana tan midda ay lagama maarmaanka uga dhigayaan qabsoomidda wajiga xige ee wada hadallada sida khubarada xiisadu qabaan. Maraykanku waxa uu lagama maarmaan u arkaa inay wada xaajoodiyadu qabsoomaan inta aysan dhammaan maalmihii tirsanaa ee Trump ku daray muddada xabad joojinta. Jihaynta natiijada dagaalkuna waxay u muuqataa inay Washington uga xiran tahay Iran oo aqbasha damacyada uu ugu weyn yahay kan ka tanaasulidda nukliyeerka, halka Iran waqti iibsashada adkaysiga iyo ka xeeladaysigeeda daminada Maraykanku u sahlayo inay Washington gaarsiiso marxalad ay ku khasbanaato aqbalaadda shuruudahooda. Raacdaynta rajadaasi uma muuqato mid Iran ka tanaasuleyso. Mid labaad oo xaaladda sii cakiraysa waa inaan Jamhuuriyadda Islaamiga ahi walwal ka qabin dib u bilaabashada dagaalka sida lagu warramayo oo marka aynu tan ku dhisno u dhibris la'aantooda cadaadisyada iyo hanjabaadaha Donald Trump waxa muuqata in Iran isku halaynayso istiraatiijiyad baala xoofto ama bluffing waxa afka qalaad lagu yiraahdo ka gudo ballaaran oo waxa la warinayaa in diidmadooda qayaxani tahay mid difaac istiraatiiji ah oo la diyaariyay dugsanaysa.